السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبة قيمها بدل المقال كان وحن كبران دونا هدي أبو نوغلادو تولز كي قيبتي لبعض أما تول كي لبعض أولو يقانو rectangular iyo elliptical marco ama rectangular marco waana kan labaad aan ku calaamadeeyay kan wuxuu ka kooban yahay afar qaab hadda ilga yarka soo furto afarta rectangular marco tool oo am loo isticmaalo elliptical marco tool iyo kuwa signal row iyo signal column kuwaani waa marka uu jarayso row iyo column hore baan u soo barnaa saaxiibada qiimaha badan oo casharada hore marka soo baranay excel ka marka soo baranay aan iraahday wordka ayaanu soo baranay hadii aad doonayso inaad u jarato rectangular maxay waa afar gees elliptical markana waa qaab maxaa yiraahdaa wareeg ah ama sidii xidigtii oo kale uu qaab wareeg oo kale hadii aad doonayso single row inaad u jarato qaab single ah waxaan ka wada single row waxa la yiraahdaa waan soo barnay waa qaab gees ah aan saraan kale vertical iyo horizontal baa la kala yaqaana marka hadaad doonayso inaad u jarato qaab gees ah si ka muuqataba ama single column doonayso inaad u jarato casharkaaga marka qaybtani rectangle kan aan qolay waxa la isku yiraahdaa marco tool ayaa ku yiraahdaa marco tool kan afarta ku kooban yahay waa marka wax jaranayso sawirkaaga qayb kamid ka jaranayso qaybtaas waxay noqonaysaa afar gees inaad u jarisid inaan gobo u jarisid inaad u jarato chief ama joog waxaan ku fahmi doonaa example ama tusaale aan ku fahmi doonaa sawir ayaan soo gashan doonaa wax example oo kale waxaan soo gashanayaa sawir aan chief iyo joog baa xaraba u jarto example adigu kan oo kale miyaan ka dhigaa kan oo kale soo dhig control 0 qawsa soo meesha soo loo kaysiyo marka waxaan rabaa inaan sawirkigaas aan soo jarto qaybta u kor rectangle ayaan rabaa inaan u jarto ama qaab afar gees oo kale waxaan leeyahay geedkan isoo jar afar gees igu soo jar ilaa xisaabkiisa waxaan ka cayaa v baan qabanaya ama toolkan hore u soo baranay ayaan qabanaya waan jiidayaa meeshii aan rabaa inaan geysanayo saan hore u soo baranayba halkan ayaan ku soo deysanaya waan soo weynaysanaya hada geedkii waa kan ma sha Allah ku sii deynaya taas waa qodobka labaad aan tago meesheedii aan ka qaado control D rectangle ka qaybtiisa labaad oo ah elliptical sida goobada igu soo jar daruurtan i soo jar idulkay meeshii halkan daruurta igu rakib i soo weynay xoogaa ku laabto control D waa marka aan sawirka jaranayo aan ku laabto marka waan xoogaa bay yar dhib badan yihiin row marka uu jaranayo marka row uu jarayo la intaas oo kale kan ma jecel ma isticmaalo sababtoo ah yara dhib badan yahay marka tusaalahan oo kaas oo kale aad marka row soo jaray hawa aan soo yaray uu dheeryahay saan oo dhamaantiis u arko waan yaraynayaa saan dhamaantiis u arko marka intuu taxan yahay u jeedaa waa wax dhib badan shift baan qabanaya waa la akeysin ilaa inta sawirkii intuu ka dheeryahay u jeedaa waa wax aad u dhib badan marka intaasan la akeysinaya saan u akaado control waxaan qabanay marka waa kan waa marka aan u jartay row aan u jartay column waa la mid aan ku laabto sawirkaygii control D kan iyo calaamadii kan row soo aan isoo jar inta ay jar ayaan leeyahay xoogaasa u kala qabo isoo qaad inta isna waan saan u yareeyo intuu laga yahay u jeeda wax iska dheeraadayna waa markaan u jartay column waxa la yiraahdaa saas hadda u jeedid control 0
waa kansna waxaan filayaa sawirada qaabka loo jarto kan waa asagoo rectangle kana waa asagoo elliptical ah kana waa asagoo row ah kana waa asagoo column ah marka qaabka harabto ayaa u jaran kadhaa saaxiibka ama saaxiibada qiimaha badan marka waxaan filayaa waad fahantay adiga ku falay doona hadda wixii ka dambeeyana waa qaybtan loo ayaan qaadanay waxaan ku hulmin doonaa muuqaalka soo socdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.